qoraal gaaban oo uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Getachew Reda ayaa wuxuu ku sheegay in dhammaan goobihii uu Abiy TV-giisa ka sii daayay inuu maalinka dhawey tagay inay hadda gacanta ciidamada difaaca Tigreega ku jiraan kadib markii ciidamada Tigreegu 10,000 oo ciidamadii Abiy kursigiisa arad kilo difaacayay ku dileen bal waxaan arkaynaa buu yidhi waxa bakhaarka ugu haray ee uu Abiy berri soo dagaalgelin doono. dhinaca kale waxaa hadlay taliyaha guud ee ciidamada difaaca Tigreega Warare oo sheegay inay beentii Abiy soo afgaabatay qorshaha ay hadda qaateen yahay midkay ku soo afmeeri lahaayeen dagaalka sanadka iyo maalmaha socda. wuxuu intaas raaciyay inay burburiyeen hadaagii iyo jajabkii uu Abiy maalmahan soo dagaalgelinayay. wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in Abiy fariimaha dagaalka keenay ardaydii dhiganaysay dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe oo iyagoo aysan waalidiintooda ogeyn goobihii waxbarashada laga soo qafaashay kadibna ugu badnaan 5 bari la tusay sida qoriga loo rido oo kaliya. waxaan aad uga xunnahay ayuu yidhi caruurta iskuuladoodii laga soo afduubtay ee dagaalka la soo geliyey oo sida aad aragteen iyagoo maxaabiis ah oo lugaha xabadu jabisay TV-ga laga sii daayay. ku dhawaad 3,500 oo askari oo liyuugii oramada ah kuna gaashaaban gaadiidkii ciidanka iyo hubkoodiina waxay si toos ah isugu dhiibeen oo ku bireen ciidanka xoreynta oramada kadib markay ka xanaaqeen howlgalka ciidanka Abiy ee Menelik loogu magac daray. warar hordhac ahna waxay sheegayaan inay ciidamada difaaca Tigreegu dhulka soo dhigeen 6 diyaaradood oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Imaaraadku ku caawisay Abiy meel u dhow Mahal Meedha. siyaasiyiinta axmaaraduna waxay ka digaysaa inaan lagu hodmin magaalooyinka ciidamada Tigreegu ka baxeen oo ay tahay xeelad dagaal oo dhabar jabin ah oo ay doonayaan in dabinka loogu soo dhaco maadaama oo aysan ka fogeyn magaalada oo ay maalinimo ka baxeen habeennimona soo duldegi karaan oo intay qabtaan cidda aragta si aysan xogtooda u gudbinin ay rabaan inay ciidamada dowladda ee magaalooyinka soo gala dukum daakum ka dhigan. ka bixitaanka magaalooyinka ee ciidamada Tigreegu ka dhab ma aha ayay dhaheen laakiin xeelad qarsoon oo military ayaa ku jirta. ugu dambeynna ciidamada cirka ee dowladda Abiy ayaa shacabka oramada beesha Kuraayo oo daafaha magaalada Addis Ababa degan duqeymo dhanka cirka ah ku weeraray iyagoo shacab tiro badan laayay isla markaana magaalooyinkii ay deganaayeen burburiyay. shacabka ay laayeen ay ka mid ahaayeen 6 oday oo xuqaashi beesha Kuraayo ka mid ah. sababta uu Abiy beeshan u weeraray ayaa lagu sheegay inay diideen codsi hore oo uu ka dalbaday inay la galaan dagaalka dhanaha ciidanka xoreynta oramada maadaama ay xoolo dhaqato geesinimo iyo xabad kululay ku caana yihiin. cadhadii ka kacday diidmadaasina ay keentay inuu dagaal dhanka cirka ah ku qaaday oo xuqaashoodii ku laayay. natiijadii arrinta ka dhalatayna waxay noqotay in beesha Kuraayo gebi ahaanba ku biirtay ciidamada xoreynta oramada.